dhinaca markaan fiirino dhaqaaqa dadka Soomaalida ama xorriyadda ay ku haystaan islii oo kale waxaad sheegtay adiga markii ay kugu dhalanaysay inaad xildhibaan u noqoto xaafadan Kamakunji in adigoo hotelkii hore Carmel loo oran jiray hadda Shabeella loo bixiyay waa isbedeshay adoo jooga in askar idin timid dad Soomaaliyeed u xidhan yihiin kuwa kale inay qaataan raba hadda sida adigu baad sheegtay arintaasi meesha waa ka baxday guud ahaan bal waxa jira marka hadda Soomaaliya oo kale oo dal Soomaaliyeed oo Kenya ay darisay dad Soomaaliyeed oo fara badan oo xagga ka soo jeedana halkan ay joogaan maalmaha xafladaha ay leedahay oo kale sida 1 July oo kale 26 June oo kale marka la marayo dadka Soomaaliyeed oo calankii Soomaaliya ee buluuga watay xaafadda islii dhexdeeda ay ku qabsadaan maaragtay damaashaad iyo oo gawaarida askarta xataa mararka qaar ay fuulaan iyaga oo maaragtay qiirada markaasi bal arintaas oo kale ka waran dareen nooca ay ku siinaysaa marka aad dadkii Soomaaliyeed oo sidaas u dhaxorday oo calankii Soomaaliya wata mararka qaar markaad aragto dareen nooca ay ku siisaa runtii waa ku faraxsanahay waayo mar waxaan ahayn dad cabsi qaba dad danqanaya hadiya jeer dad isqarinaya oo aan isku kalsoonayn bana laakiin maanta waxaan soo gaarnay kalsoonideena meesha ay joogto in la aqoonsan yahay dadka Soomaaliyeed loo aqoonsan yahay inay Kenya degaan Soomaaliyana ay qayb ku leeyihiin xorriyadna ay u haystaan si nabadgelyo inay halkan u joogaan marka runtii waa wax lagu farxo sababtoo bariga hore nin Soomaali ah iska daa intuu soo baxo inuu yiraahdo Soomaaliyan arin Soomaaliya ka jirtaan u dabaaldegayay calanka Soomaaliyeed hadii lagu arko ba la xiri jiray ama se waa la dili jiray maanta laakiin taasi muranba kama joogo waxaad moodaysaa qayb kamida magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka Soomaaliya oo kale taana waxay muujinaysaa bisalka iyo horumarka dadka Soomaalida Kenya ay gaareen sababtoo ah bariga horeeto waad inkiri jirtay inaad Soomaali wax ku leedahay cabsidu meesha ay joogto laakiin maanta waan isku kalsoonahay anigoo Kenyana ayaan Soomaali ah dhaqankayga afkayga dhalasho iyo dhiig baa naga dhaxeeya dadka reer Soomaaliya marka aad baan ugu faraxsanahay 1 July inay sanad kastaba looga dabaaldego islii si xorriyad oo madax bannaan in looga dabaaldego sida magaalooyinka kale ee dalka Soomaalida ay u badan yihiin looga marka arintaas dadaal nooc ay ku timid in dadku ay taasi waxay muujinaysaa inaan xildhibaano leenahay inaan MCA leenahay inaan cod iyo awood iyo karti ku leenahay dalka oo marti aanan ku ahayn oo aan qayb kamid aan deganahay xilliga xildhibaanka noqonaysa ma jirta arintaas in dadka Soomaaliyeed sidaas oo kale ay maaragtay calaamad oo la soo baxay ma dhici jirin maalin sidaas u soo bixi karto waxaa jirta maalintii la doortay Farmaajo anigu xafiiskan ka imid gurigan imid waxa ila soo hadlay taliyaha ciidamada booliiska ee magaalada Nairobi wuxuu igu yiri xaafadaadii mushkila ka jirta dad fara badan baa suuqa u soo baxay oo dhawaaqay mudaharaad baa ka jira marka laba guuto oo GSU ah ciidamada booliiska ee dalka Kenya ayaan ku dalbanaynaa marka waan yaabay oo telefoon baan qaato dhalinyarada la hadlo waxaan ku yiri xaafada ma dhib baa ka jira markaas uu yiraahday may wax dhib kama jiraan dhalinyaro baa soo baxday waxay u dabaaldegayaan doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo waa waqtigii uu ereygan Farmaajo iigeeya soo baxay marka waan ku celiyo waxaan niri wax dhib kama jiraan waxay u dabaaldegayaan doorashada madaxweynaha Soomaaliya ama sidaasa lama baya maxay ugu dabaaldegayaan ma oran uma dabaaldegi karaan ma oran aniga marka halkan waan ka tagay meeshii baan tagay waan la hadlay waxaan iri si nabada oo xasiloonana u dabaaldega markii dambena waan kala hadlay oo waxaan koray Kilimanjaro hotelkan Kilimanjaro korkiisa oo khudbay waxaan iri marka ilaa saqdi dhaxa ayay dabaaldega socday wax askari ah iyo wax dhiba oo u yimidna ma jiraan sababtoo dadku dimuqraadi baan anagu nahay qofka xaq buu u leeyahay wuxuu jecel yahay wadanku jecel yahay waxaan u dabaaldegaa anigu koonfur Afrika xornimadeedu waan u dabaaldegay oo nin Afrikaan baan ahay oo qiira ay qaaday Namibia sidaas oo kale markuu nin African American doorasho ku guuleysto Mareykanka
waan u dabaaldegnaa nin afrikaana markuu baarlamaanka ingiriiska soo galay waan u dabaaldegayna inkastoo marka xorriyaan u leenahay annagu xiriiryada aan leenahay dhalashada dhiigga dhaqanka waxay noqotaba aad iyo aad baad umahadsan tahay mudane xildhibaan waayahay doorasha hadda inagu soo aadan 3 teran baana hadda maaragtay xildhibaan yuusuf xasan u dhammaanaysa bal doorashada inagu soo aadan hadalhaynaa mararka qaar laga maqlaa suuqoo xildhibaanku intiisi waa dhammaystay hadda maaragtay magaalada dhinac ka galaya iyo maaragtay waxyaabo badan baa mararka qaar la maqlaa xaggeed u socotaa doorashada soo socota marka ugu horeysa waddanka waa waddan dimuqraadiya dastuurka waddanka Kenya xildhibaannimadu waqti kooban ma leh ninka xildhibaannimada wuxuu u istaagi karaa intuu doono oo shicibku ay dooranayaan waxaa xakamaysan madaxtinimada oo 2 jeer un kaliya u istaagi karto madaxweynaha waddanka marka anigu 3 jeer oo horaan la doortay waan u mahadnaqayaa dadkii soo doortay ee sharafta lahaa kursiga iminkaan ku fadhiyana waan daafacaya anigu ninta hawshii aan soo qabtay baan doonayaa inaan soo dhammaystiro wixii horumar aan gaaray horumarka way muuqataa wixii dadaal aan sameeyay way muuqataa laakiin se magaalaha hal maalin lagu dhisay ma jiraan hawlo badan oo yaryar baa noo haray waxaan jeclahay inaan dhammaystirto oo aan soo dhammaystirno marka kursiga waa sii daafacaysa waxaa taasi dheer dadka reer Kamkunji waxay iga doorteen dad fara badan oo kale waxaana igu doorteen aqoontayda way aragnimadayda iyo kartidayda iyo adaabta iyo sharafta aan muujiyay marka waxaan filayaa in ay ayaguna doonayaan nin xildhibaan u ah oo nabadooda ka shaqeeya oo horumarkooda ka shaqeeya oo midnimadooda ka shaqeeya oo dadkeena isu keena dadka kaleete ee xaafadda wada wadaagnana deegaanka wada wadaagnana aan isbahaysi iyo wada shaqayn fiican ay naga dhaxayso marka ma filanayo inuu jiro nin kaleeto maanta isa soo bixiyey oo muujin kara arrimahaas aan anigu soo qaaday nabadda xaafadda badbaadinaya horumarka xaafadda sare u qaadaya midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed iyo dadka kaleete ee xaafadda aan wada deganahayna ay ku kalsoon yihiin oo horay u sii wadaya wanaaga iyo horumarka xaafadda aad iyo aad u mahadsan tahay muxuu yahay marka goolka ugu dambeeya mudane yuusuf xasan uu ka leeyahay inay gaadhaan dadka Soomaaliyeed ee xaafadda Islii iyo guud ahaanba degmada Kamkunji tan ugu horeysa waxa weeyaan xoog siyaasadeed oo lama huraana oo aan dib loo celin karayn marka ugu horeyso inaan isku hubsano kursigan Kamkunji inuu noqdo kursi Soomaaliyeed oo aan u badannahay oo aan tala ku leenahay oo mar dambe nin aan Soomaali ahayn aan loo dooranaynin taas anigu ujeedadeeda ugu horeysa kuraasta kaleete hoosteesa MCA-yaasha aniga markii la doortay hal kursi baan ku lahay hal xabay Soomaali ku lahay MCA-yaasha waxaan gaarsiiyay 3 iminka 3 Soomaali baa laga soo doortaa 5 deegaan ee Kamkunji waxaan jeclahay 3daas inaan hadana si badiso hatta haddii aan la badin 3daas inaanayna dhaafin oo aan xoog ku sii yeelano xagga dhalinyarada inaan xoog ku yeelano deegaanka magaalada iyo dalka ururka dumarka iyo dhaqdhaqaaqa dumarka inaan xoog ku yeelano deegaanka magaalada iyo dalkaba waddanka siyaasaddiisana inaan qayb libaax ka qaadano oo aanan ahayn dad marti oo loogu yeeraya qada dad kale ay soo samaysteen oo aan ka mid noqono dadka talada ay ka go'do talada waddankana la weydiiyo xagga horumarka wixii noo haray jidad ha noqdeen iskuulo ha noqdeen dhismaha xaafadda ha noqoto qaybta xaafadda ay ku leedahay dhaqaalaha waddanka tan dawladda hoose iyo dawladda sarena in qaybteeda iyo dhaxalkeeda ay si buuxda u hesho oona waxban aan laga dhicin ama se laga goosan ama laga qarin
marka Soomaalida sida bisad u noolay si libax u noolatarta way aad baad ma santahay mudan xildhibaan waa soo koobayna marka aan fiirino dhinaca horumarka ama jidadka iyo dhismayaasha kala duwan iyo sida waxaan ogahay hadda meel lagu ciyaaro oo kale dhalinyaradu isugu timaado xaafadda wali waxaan u maleyn hadii ay hirgeliseen hada ay sheegay dhinaca maxaa kaaga qorshaysan hadiiba mar kale aad soo noqoto meeshaas in fact culays badan baa naga haysta dhalinyaro badan baa xaafadda leedahay waxaa jira iskuulla iminka ay ku ciyaaraan dhalinyarada مثلا hatta timamka ugu weyn wadanka Sofapaka schoolkan Isli High School bay ku ciyaaraan laakiin se waxa jirta saddex meelood oo airbase meel kamida iyo Kamkunji mid kamida iyo Isli South oo noogu jirta xisaabta wasaaradda ciyaaraha aan ku tala jirnay inay nala qabato oo laga dhiso meel kubadda lagu ciyaaro ama si ciyaaraha kale lagu qabto laakiin wasaaraddaasi dhibaatooyin fara badan baa qabsaday hatta kuwii waaweynaa ee dalka ugu tala galeen wali waxban kama fulin laakiin se sideedan bilood soo socota waxaan doonaynaa mid kamid ah saddexdaas inaan dhameystirno intaan doorashada Kamkunji grounds labada kalena inaan dhameystirno sida ugu dhaqsi badan wixii waqtigaasi ka dambeeya aad buu maasan tahay xildhibaane markii aad imanaysay 2011 ahayd iyo maanta oo aynu joogno 2021 dhamaadkiisii oo 2022 aynu u soconno boqolkiiba maxaad ku qiyaasi kartaa inaad gaadhay yoolkii ama goolkii aad higsanaysay ee aad u soo gashay baarlamaanka wadanka inaad ku matasho xaafadan Isli iyo guud ahaan degmada Kamkunji haddii dhinacaad u dhigto hadda jidadkoo kale boqolkiiba 90 waan fulinay 10 unbaa nooga haray 10 kaana runtii haddii dawlad hoose oo fiican oo aan ku kalsoonahay oo wax qabad leh haddaan heli lahayn waan dhammaystiri lahayn laakiin se meesha dhaawaca weyn naga gaaray hatta nimankan MCA-yaasha Isli Kamkunji laga soo doorto uu dhaawaca ka gaaray waa dawladdii dhexe ee dhaqaalaha magaalada loogu tala galay ayaa naga halawday oo waa kii nin cayaala suuq oo soonko la yiraahdaa laga doortay markii dambena waa kan la eriyay xagga dugsiyada boqolkiiba 90 waan soo dhameystirnay guud ahaan marka aad tiraahdo marka meelahan kubadda lagu ciyaaro dhalinyaradu ay ku ciyaarto hadii lagu daro anigu waxaan oran karaa average-ka boqolkiiba 85 anigu hawsheedu waan soo dhameystay hawsha marka higsanaysay dhinaca ammaanka iyadana dhinaca ammaanka hateen runtii ammaanku aad buu burbursanaa ammaanka xaafadda laakiin se ammaanka xaafadda ma ogtahay xaafadda kaligeed kuma xirna ammaanka magaalada iyo dalku ku xiran yahay مثلا ilaa 2017 ilaa 2019 tugada waan ka ciribtirnay xaafadda laakiin se tan iyo waqtigii covid-ka dhaqaalaha wadanku hoos u dhacay ayay tugada iyo burcadnimadu ay magaalada ku soo kordhay de Islina jasiirad ma ahoon dadka soo gala ma aha reer Isliya waa dad baabuur wato oo ama sabahalka dhugluglaha wata oo boobaya isaga baxaya laakiin reer Isli ma ahayn niman burcada ayaa nagu soo kacay anigu markaan xildhibaanka ahaa waan ka tirtirnay xaafadda oo maanta xaafadda si nabada berigii hore xaafadda waxaa jirtay meelo dukaamadeeda habeenkii la jabsan jiray oo loo soo jeedi jiray shantii sano ina dhaafay tuuga noocaas oo kale xaafadda kama dhicin marka tuugada iminka magaalada ka jirta waa tu dhaqaale xumida iyo cudurkan koronada la timid oo dhalinyaro fara badan oo iska shaqala ayaa iska jirta marka anigu markii la soo doortay xagga nabadgelyada Isli hal police station ma lahay iminka 4 police station baan leenahay airbase police station bay leedahay Isli police station bay leedahay California police station bay leedahay Isli South police station bay leedahay marka waxaas oo dhan waxay muujinaysaa in nabadgelyadu ay ka fiican tahay sidii hore markaa ahayd